ergooyinka ka qaybgalaya shirka maamul sameynta Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa maanta meel mariyay dastuurka uu yeelanayo maamulka loo dhisayo labada gobol. kulan ay maanta isugu yimaadeen howlka shirarka ayaa ergooyinka cod gacantaaga ku ansixiyeen dastuurka qabyo qoraalka ah ee labada gobol oo maalmihii la soo dhaafay ka doodistiisu ay socotay. 202 ergo ayaa ka qayb gashay codeynta dastuurka maamulka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaana ansixinta dastuurka 186 ergo oo shirka ka qayb gashay ay ansixiyeen halka 10 ergo ay diideen ansixinta dastuurka 6 kalena way ka aamustay. ergooyinka ayaa sidoo kale xalay isku raacay astaanta maamulka iyo magaca loo bixinayo oo lagu sheegay Hirshabeelle. ugu horeyn ayaa waxaa madasha ka hadlay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo wakiilka urur goboleedka Igaar Jamaal Axmed Xaaji. maanta waxaan marqaati ka ahay nasiibna aan u yeeshay in dastuurkii dowlad goboleedka Hirshabeelle ayadoo la ansixinayo inaan goobjoog u ahaado. xildhibaanka kaliya ee nasiibka u yeeshay ayaa nahay. waxaan aad ugu faraxsanahay arrintaas ayada anoo ku hadlaya magaca urur goboleedka Igaar ururada caalamiga ah maamulkii Hirshabeelle aad soo dhisteen inaan marqaati ka nahay dastuurkii inaad gudbiseen. waxaan u sheegaynaa maanta in lagu guuleystay maamulkii inta lala soo xarbinayay maanta inuu dhismay. sidoo kale xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa asna madasha ka hadlay. maamul goboleedka Hirshabeelle oo ergada halkan fadhisay maalmahan oo dhan ay ku dhigtoodeen ayna isla qaateen saakana la ansixiyay. ilaahay waa kuma tan labaad waxa weeyaan dastuurkaasi wuxuu ku qotamaa hanaanka federaalka wuxuu ku salaysan yahay shariicada islaamka. waqtiga maamul goboleedka la rabo in la dhameystiro dawladdiisa waa 15 bisha Oktoobar. ilaahay idin lixdanka iyo shanta qodob inaan ku shaqeyno aan raallina waxaa la yidhi culumo ha u dhowaan hana ka dhaqaaq webiga waxaa la webiga hana u dhowaan hana ka dhaqaaq dowlad waxaa la hana u dhowaan hana ka dhaqaaq markeed dowladda haddaa ka dhaqaaqdo wax ma hayso waaba lagu furahaaba. Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar.